halkan waxaa ka dhacay qarax isla markaana loo adeegsaday mooto bajaaj oo ay saarnaayeen dad qaraxyo iyo hub watay kuwaas oo booliiska sheegeen in ay ku qarxeen wadadan oo dhex marta xaafadda Taleex degmada Hodan ee magaalada Muqdisho tali ku xigeenka qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir Cali Dhuux Mahad Alle ayaa ka warbixiyay qaraxa khasaaraha ka dhashay waxaana uu sheegay in ay hayaan dhaawaca darawalkii waday mooto bajaajta isla markaana waxa uu sheegay in ay jiraan dad kale oo qaraxa waxyeello ay ka soo gaadhay oo saarnaa mootada bajaajta ma jira wax khasaaraha oo soo gaaray dadka rayidka sida taliyahuba uu shaaciyay ciidamada amniga waxay ku guuleysteen booliiska Soomaaliya inay ka hortagaan dhagar qabayaashii ummadda gilgili jiray oo muxuu ahaa wata qaraxyo iyo hub ay rabeen inay ku dagaalamaan ilaahay maadii waa la fashiliyay qaraxina wuu dhacay ayaga hubkay ku dagaalami lahaayeen gacantaan ku haynaa bambooyin aan qarxin oo ay wateen annaga ayaa si nabadgelyo ku fulinay wixii macluumaad oo intaas dheer dib ayaa laga soo sheegi doonaa ilaahay maadiis ma dhicin wax khasaaro nafeed ah oo aan isqarxiyihii ahayn ma dhicin dhaawacna waxaana soo gaaray hal qof marka ilaahay maadiis waaye ilaahay xamdigaas iska leh dadka Soomaaliyeed marka waxaan u sheegaynaa wixii maanta ka dhacay halkaas inay ahaayeen ciidankuna ay ku guuleysteen in ay fashiliyaan argagixisaas rabtay inay falidbiyad ka geysato bajaajka imisa qofooda saarnay annaga bajaajka intii qofooda saarneed waa gubteen qaarna ayaga ninkii bataaj wadaha ahaa oo bataajka gacanta ku hayna isagoo dhaawacaya ciidamada amnigu gacanta ku hayaan intii kale tan way gubteen qaarna way isqarxiyeen meesha yaalaan laakiin qoryihi annaga aan aragnay oo ayagu ay wateen 4 qoryihi ahaayeen iyo waxyaabo kale oo qarxo annagu aan qarxinay waa maasanta waxaad noo sheegtay qof dhaawac inuu jiro qofka dhaawac iyadoo ahaa hubkan iyo xagee loo wada wax tafaasiil ma ka haysan anagu inta aan hubo wuxuu ahaa qofka dhaawacii wadihii bataajta bambooyin badana meesha saarna marka uu fashil dhaco ujeedadii la waayane waxna way qarxayaan ayagii sababta ilaahay ku kalifay inay meesha ku baaba'aan marka qaarna annaga fulina oo si nabadgelyo ku fulino ummadan ka badbaadinay qaarna meesha ku qarxeen si kastaba aatee qaraxan ayaa ku soo beegmaya xilli magaalada Muqdisho ay si weyn ugu socdaan howlgallo ay wadaan hay'adaha amniga Soomaaliya Cabdi Casiis Okey University TV Muqdisho